ereyga hodan la yiraahdo waa wax yani ku dhow isku filaan. marka haddii ereyga ku fasirno isku filaan waxaa looga jeedaa inuu waxaynaana af laakiin hadda sidaad su'aasha igu weydiisay waxay ahayd af carbeed oo luqad ayaad tiri. anna waxaan leeyahay maadaama aynu ka hadlayno afka ka hadlayno afka hodanka ay waxa weeye af waxa laale wixii la doono oo macna lagu sheegi karo iyadoo aanay soo gelin afaf kale. waayo afku sidiisaba waxa uu gudbiyaa waxa weeye macne. marka inaan macno kale ama ujeedada loo gol leeyahay meel kale laga doonin weeye hodantinimadu runtii afka Soomaaliga waa taa u leeyahay. sideedabana afku waxaa jirta meel uu ku xoog badan yahay waa meesha xarunta u ah ee bulshada ku hadasha ama dadka afkaale ee astaanta u yahay ay joogaan. runtii sidaad og tahay dawladda dhexe ee Soomaaliyeed waxay ahayd dawladda qortay af Soomaaliga waxaan weli sii xusuustaa aniga ayaa ka mid ahaa dadka Soomaalida ardada ahaa ee af Soomaaliga wax ku bartay. waxaanu ku baranay dhammaan culunta bulshada marka laga bilaabo ilaa iyo luqadaha kale ee cilmiga ah sida physics-ka iyo chemistry-ga iyo biology-ga oo malaha dadka da'da yar hadda in af Soomaali lagu dhigtay aanay ka warhayn. marka af Soomaaligu waa gaamiray waxa kale oo jiray akademiyada dhaqanka fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed oo dad odayaal ah oo wax garad ah iyo xulkii dhaqanka iyo afka labadaba isku tarsaday ay joogtay ay meesha ay lahaayeen weeye. dawladuna qaybteeda waxay ahayd inay ilaaliso afka ay ilaaliso oo lagu ilaaliyo waliba laba meelood oo aad u qaali ah oo meel ay tahay warbaahinta aad ka tirsan tahay meelna ay ahayd iskuulada iyo dhulka wax lagu barto iyo goobaha ay bulshada isugu timaado. marka bulshadu waxay ku haasaawi jirtay baa wuxuu af Soomaali heesaha iyo gabayada iyo tiraabta ama tixda bulshadu waxay wada ahaayeen af Soomaali. markaas af Soomaaligu ugu xoog badnaa maxaa jira dhaqankiisii ayaa noolaa saldhigiisina uu fadhiyay. afku saldhig buu leeyahay saldhigaasi waa dhaqanka weeyaan. dhaqankuna waa wax la kala dhaxlay. inagu saynu hadda maanta u hadallo hooyooyinkeen iyo aabayaasheen iyo baynu ka qaadanay waxa weeye wax soo jiray weeyaan. maanta waxaad aad u maqlaysaa dad badan oo af Soomaaliga ku hadlaya oo af Soomaaliga in lagu hadlo wax dhibaato badan ma aha laakiin in xeerarkiisa iyo naxwihiisa iyo qaabkiisa iyo sumadihiisa la ilaaliyo iyo wax weyn haddaan kula kaftamo. waxaad maqlaysaa wad warbaahinta qaarkeed ka maqlaysaa barta aynu ku leenahay internetka. markaan yar kula kaftamo Axmed af Soomaaligana aad u taqaan barta aynu ku leenahay waxa weeye qofka hadlaya wuxuu ku darayaa dadka uu la hadlayo inay wax la leeyihiin oo bartu ay ka dhaxayso bulshada iyo qaybta iskale barta iskale. waxa ka fiican inuu yiraahdo barta aanu ku leenahay waxa jira barta ama BBC ba iskale ama Star FM ba iskale ama idaacad kale iskale. dadweynahana yani iyagu barta waxba kuma laha cid leh. marka anagu kuma jirno haddaan dadweynahana marka in badan waxaan aragnay masabid oo ay ka mid tahay waxaynu booqasho ku tagnay waxaynu waraysi la yeelanay wad moodo qofka dhageysanaya iyo ka sheegaya inay wadaagaan. marka waxa fiican la idin leeyahay waxaanu booqasho ku tagnay waxaanu waraysi la yeelanay haddaanu nahay bahda warfaafinta. marka hadduu saa ku sii socdo waxaad kaloo arkaysaa qof baa waxa la yiri hebelo waxa ka waran waxa waan jecelahay waxaana ka waran waxa iyaguna waan jecelahay. marka iyaguna waan jecelahay jacaylkaas cidii ku dhacay waxay noqon lahayd la yeelihi. waxaad moodaa in la isku khaldayo yeelidii iyo la yeelihii iyo yeelmadii. waxaa laga yaabaa haddii arrintaa Ingiriis ku idhaahdo inaad tiraahdo maxaad u khaldaysaa laakiin af Soomaaliga markaan idhaahdo iyaguna waan jecelahay hadan waxba dareemin. marka sidaa yar u lumaya maadaama aan xeerarkiisii iyo maxaan ku raahdaa la ilaalinaynin afka dhismihiisa iyo dhagaatiyadii u lahaa. waxaan u malaynayaa maama Soomaaliyeed waxay lahayd biyo sacabadaada looga oombaxaa biyo waxay yiraahdeen biyo
sacabadaada looga oombaxaa af Soomaaligu ma ahayn kaliya af lagu shaqeeyo laakiin af Soomaaligu wuxuu lahaa sheekooyin Soomaaligu wuxuu lahaa hees hawleedyo af Soomaaligu wuxuu lahaa gabay iyo dhaqan af Soomaaligu inta uu wada lahaayo dhami waxay ahaayeen rukumadii ugu taagnaa haddii marka aqalka tiirarka loo bixiyo waxa ummadii Soomaaliyeed horta marka hore ku dhacday dhulkay deganaayeen bay ka guureen annagu markaan iskuulada dhigan jirnay dugsiga hoose af Soomaali baan ku dhigan jiray idaacadu af Soomaali bay ku hadlaysay dadka heesaya iyo kuwa gabyaya iyo kuwa buraanburaya af Soomaali bay ku hadlayeen qofka Soomaaliyeedna maba uu ogeyn af Soomaaliga af aan ahayn oo baahidiisa baabi'in kartaa inay jirto oo kaga bogan karo waayo waxaad ku garanaysaa hadaaqi iyo heesi af Soomaaliga hordhaca u ahaan jiray afkii qalaad hamoodin carabku qaldi maaye sidii caanaha qurquriya qalinkaaga ii dhiib erayada aan kuu qoro qumaati uga bogo marka runtii waxa kale ee lagu daray Soomaali wada geedi ah oo ka tagtay waxaan anu ku soo koray midalan marka miyiga la joogo reer baadihu meel ardaaya inta isugu yimaadaan inuu aabbe caruurta u sheekeeyo oo uu uga sheekeeyo sheeko isaga looga soo sheekeeyey wan iyo dhurwaa lax indhala inuu uga sheekeeyo maxaan ku dhahdaa gorayo iyo dabagaalle isqaba inuu uga sheekeeyo wax fara badan oo sidaa ah oo ilmaha yaryar markaa lagu bari jiray inay jiraan dhaqan qaali ah oo uu leeyahay oo xataa sheekada caruurtu ay ka mid ahayd waxa lagu ilaaliyo ilmaha xifdigooda lagu ogaan jiray sida waxay xifdiyaan iyo xusuusta hal xidhaalaha lagu ogaan jiray carabkoodu inuu bad qabaa lagu ogaan jiray wax badan oo saasaa jiray wixii mar hadday hadda tageen oo Axmed uu laga yaabo haddaan kula kabto macaan caruurtaada hadday tiraada in sheekee in aan maxaan ku dhahdaa riwaayad filimkii matalan ama Master Bean aad u keento ama Tom iyo Jerry aad u keento ama wax kale oo la mid ah caruurtaada aad ku maaweeliso haddii meesha wixii aad gelisay baa marka af Soomaaligi inaga saaray waxaynu niqiinay arraweelo waxaynu niqiinay dhagdheer waxaynu niqiinay oday biiqay waxaasi waxaynu niqiinay awr cir waxaasi waxay ahaayeen sheekooyin aynu wada naqaano oo haayo waxaa la yidhi sidaa wixii aynu sheekayn jirnay caruurta u dhigi jirnay mar haddaad ka dhigtay Master Bean iyo Tom iyo Jerry iyo Yaxye iyo Lamiis waxaan u malaynayaa af Soomaaliga wadkiisaba idinkaa siday marka meelsha lagu aasay malaha adaa ka waraya anigu inuu buko baan ogahay Soomaaliga in la ururiyo dadka af Soomaaliga aad ka u yaqaan oo bal ilaa xad la abuuro in la sameeyo dhaxalkii hore inaga lumay in la isu keeno waxaan kaloo bahda warfaafinta aan kala hadlayaa haddaydan Ingiriis ku hadlayn ama aydan af Carabeed ku hadlayn ama aydan af Talyaani ku hadlayn oo waxaad nagu hadlaysaan oo af Soomaali yahay ha oranina xaaladda murugaysan ee Soomaaliya tusaale waxaad arkaysaa wariyaasha anu magacyadooda ma sheegay laakiin waa dhigay xaaladda murugaysan ee Soomaaliya waxaan aaminsanahay xaalad inayan murugoonin oo ayan farxin waayo waa xaalad wariyahaasi wuxuu ku kala saari waayay baan u malaynayaa qolkiisa lagu sameeyo tafatirka wuxuu ku kala saari waayay xaaladda murugsan iyo wax murugaysan marka aynu kala saaro oo wariyaashu ha ogaadeen inay yihiin macallimiin wariyaashu ha ogaadeen inay yihiin dadka ugu horeeya af Soomaaligu ku tiirsan yahay waayo idaacadda waxaa la oranayaa idaacadda af Soomaaliga ku hadasha haddaan anana idiin bixin inaad tihiin idaacadda af Soomaaliga ninka ka hadlayaana uusan ahayn nin gabigiisaba af Soomaaliga laftigiisa aan aad u kala garanayno ee ka daaya bowsiga oo afku wuu qornaayo qodob buu lahaa oo wuxuu lahaa mataqaanaa ii sheeg joogsi buu lahaayo hakad buu lahaayo afku wuxuu lahaa wax la yaqaanee sumadihii afka marka hore idinku isku day inaad tihiin maadaama bulshadu aad idin dhageysanayso inaydan khalad ka gelin afka Soomaaliga oo afka Soomaaliga waxaan idinka rabnaa inaad odayaasha u geysaan erayada markaad sheegaysaan ee aan qof ka bowsan oo dabad idaacadda laga oran xaaladda murugaysan oo aan la dhihin iyaguna waan jecelahay oo la kala saari waayaba يعني واحد لا جعل iyo wax jecel iyo jacaylku wuxuu ahaa